السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دهانتين بأصحاب تقاليق كحرين كنا الكينا هذا فاشيون أديات بندي سلام من أمريكا استدوني الدافع إذا كجسكتي سلام بقرتين هو ذي صامرنا وحنين كعطينا كنا الكادات كعسبتين ويتهايمر كوبات إنه صاب وختين إن سبسكرايب نوسرتين كمبلا كنا فرتي صادون قمن نقطين صاحب هذا نقول حرنا نقولنا أتكيات كانوا شعلنا هاي سود وهذا صافر يستمرون كمينكي نواي إذا هانتي بصاحب تقاليق عاو وحندي ودنا برنامج أنك قاعد دونه فنانka da'da yar ee khadarkeeyo oo caawiya carruur yar oo masaakiin agoon ah aabahoodna lagu gubay magaalada sida wararku nagu soo gaarayaan waxa la yiraahdaa carruurta yar waa agoon aabahoodna waxa lagu gubay magaalada Muqdisho haddaba khadarkeeyo oo ah fanaan da' yar naxariis badan iyo wanaag badanna ay ka muuqato fanaankaas oo ka hadlaya arrinkaas amba carruurta yar oo ku faraxsan dharka ciidda uu iibiyay amba caawimada uu siiyay bal ila soo yara arka muuqaalka saaxiibadeeda qaaliga ah lacag $500 aan walaasheeda Siciida Aweyso oo maamada guriga ah aan ku wareejinay carruurta agoonta hooyadood ah marka waxaan faraxsanahay ala lacagta noltaani تريدنا وهم باهنين عادي أنا وفرحسناي walaalkay qadarna aad iyo aad ugu mahad celinaya iyo gabadha asaga garabkiisa ah insha Allah iyo dhalinyarada isoo booqatay intaba iyo intii walaalo Soomaaliyeed oo isaacidabo waxaan leeyahay ciid mubaarak lacag $500 ee khayr Ilaahay ha siiyo wuxuusan filaneen Ilaahay meel gaaban ha ugu siiyo insha Allah asaga iyo walaashiisa garabku ah ma sha Allah si fiican ma filaneenin Ilaahay waxaan filaneen khayr badan Allah siiyo insha Allah aad ugu mahad celina ugu duceynaya ما شاء الله wax badan ay ka bedelaysaa farxadoodan aad ay u farxayaan ugu ciidi doonaan insha Allah waxaan ugu soonahay inay ugu soo foodaysaa ciid barakeysan bish Ramadaan aan ka sii bixin ciidna aan galayno waxaan maanta u imiday walaalkeena Axmed Duulo Allah u naxariistay caruurtiisii uu ka geeriyooday agoonta ah waxaan deeq lacageed ugu talagalnay aniga iyo walaashayda Kaltum deeqdaas aan u keenay maanta waxaana waajib naga ah sida aan ogsoonahay diinteenuna na fartay in caruurta agoonta laga farxiyo haddii aad awood u leedahay marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaa leeyahay caruurta agoominta waqti halala qaato bisha barakeysan ee Ramadaan ama maalintii ciid nagu soo foodaysa waa mahadsantiin dhabaantiin maxamed idle raadiye